wanaagsan saaxiibayaal saa u dhantiin meel kasta dunida ka joogtaan fadlan hadday tahay daawashada kugu horeysa channelka subscribe noo saar like share comment soo asxaab badan u gaaro intaas oo ku maasan tahay intaa kadib xalay shaxdeeni kaliya waxaa ka dhigneed Inter Milan xalay 6 kooxood ayaa shaxda inoo tiilay waxaan ugu horeysay Sporting Club de Portugal iyo Tottenham asxaab badan ayaa dhahayeen xalay Tottenham ayaa badinayso balse daqiiqadii ugu dambeysay 85 wixii ka dambeeyay laba gool oo degdeg ayaa dhalisay Sporting Club de Portugal waxaa ku xigtay Bayer Leverkusen iyo Athletic Madrid oo ayadana ku saadaaliyay in Athletic Madrid laga dhalin karin 3 gool ciyaarta guud ahaan marka laba gool ayaa laga dhalishay inkastoo 8 wixii ka dambeeyay labada gool laga dhalishay halkaasina Athletic Madrid gool saddexaad hadii laga dhalin lahay waa markaas waxbay kala sheekadu isbedel lahayd laakiin Atletico 3 gool lagama dhalin sidaas ayay weyn ku noqotay Bayern Munich iyo Barcelona ayadana lisdhahay goolal badan ayaa la isku fardhi doonaa balse Bayern Munich oo kaliya 2 gool ayaa dhalisay halka anagana ku saadaalinay total under 5 gool 6 gool 5.5 waxaa laga wadaa 6 gool ma imaanayo hadduu 6 gool imaanayo sidaas ay idana sheekada isugu bedelahay macnaha asxaab badan ayaa tan xal ku wareysaneed oo dhahaya arkay inta badan xalay shaxda waa bedeshay aan waxa bedel ma jirto sidaad u jeedaan Liverpool iyo Ajax ayaa waxaa saaray one half waxaa saaray double chance sida u jeedaan Liverpool one half waxaa saaray double chance kii marka hal iyo hal ayna ku dhamaatay sidaas ay weyn ku noqotay marka dambe Liverpool way badisay laakiin taas kaambi dambeed laakiin aniga waxaan saadaaliyay waxaad kaambi oo kaliya inay Ajax badi karto ama bridge ay gali karto sidaas ayana hal iyo hal ku noqotay macna kadib wan noogu soo baxday Milan ayaa hadda ugu dambeeyay Milan iyo Dinamo Zagreb oo xalay ku soo daray shaxdeena maadaama waa ku ildoofay balse goosh laakiin 6 gool ayay noo ahayd Milan saa u jeedaan hadda 9 daqiiqo mareysa 3-1 ayay mareysaa marka boqolkiiba 100 ama boqolkiiba 99 waxa la dhigi karaa tan waa wun waxa ugu dambeeyay Inter Milano iyo Victoria kooxdan lahaa Inter Milan ayaa double chance saaray inkastoo markaas ka baqay laakiin Inter Milano 2 gool ayay ku badisay marka shaxdeena guud ahaan intaas ayay ku soo afjarantay marka kaliya waxa ka dhiman guusha inay Milan ay hesho macnaha inay guuleysato Milan bas ayaa ka dhiman wayna guuleysanaysaa sida u jeedaan 3 gool ayay sii marsiinaysaa wax ka yar 10 daqiiqo ayaana ka dhiman guud ahaan ciyaarta insha Allah shaxdi kale oo maanta soo dhiga doortiina iyadana inay guuleysato rajay doona aad ba u mahadsantiin guuleysta saaxiibayaal